بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalayaal muuqaalkan waa muuqaal aan ugu talagalay dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ku xidhan kanaalka ee isoo gaadhsiiyey fariimaha iyo inta kale ee aan fariimaha isoo gaadhsiin laakiin muraadkaas oo kale qabta iyo muslimiinta kale guud ahaan iyaguna allahumma salli calaa maxamed muraadkan oo kale leh waxaa iga soo gaadhay daawadayaasheenna ama dhegeystayaasha kanaalka ku xidhan dad xanuunsan oo u baahan in loo duceeyo oo aamiinta loo yidhaahdo allah subxaanahu wa tacaala inuu caafiyo oo caafimaad taama uu siiyo biidni illaahi tacaala dad kale oo arrimo kale oo caqabad ay ka haystaan in bilaa camal ah in allahuma salli calaa maxamed guurdoonah ayaa jirta dad waxaa jira xabsiyada dad ay kaga xidhan yihiin oo iyaguna la dhibaataysan iyo dad duruufaha nolosha ee kala duwan ay mashaakil haystaan xagga qoysaska iyo arrimahaas la xidhiidho oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryayaa dhammaanteenna aynu ka wada baryaynaa in qof kasta oo inaga mida oo dadkaa ina soo codsaday iyo dadka dhegeysan doona ka mida iyo qof kasta oo muslimiinta maqli doonta un ka mida ama muslimiinta ka midaba in allah subxaanahu wa tacaala faraj degdeg ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u furo allahuma salli calaa maxamed walaalayaal maxaan ku idhaahdaa ducada la isku duceeyo calaa dahri lqeyb iyada oo la kala maqan yahay oo aan la wada joogin waxay ka mid tahay ducooyinka maqbuulada ah waxaan ilaahay oga baryaynaa qof kasta oo muuqaalkan uu soo gaadho oo muraad leh oo meel uun caqabad ay ka haysato dhinacay doonta ha noqotee in allah subxaanahu wa tacaala uu faraj degdeg ah allah subxaanahu wa tacaala uu u furo caqabadahaas iyo waxa uu tirsanayna allah subxaanahu wa tacaala uu ka xalliyo wax kasta oo khayr u leh in allah subxaanahu wa tacaala uu siiyo wixii shar u ah noloshiisa iyo mustaqbalkiisa dambana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leexiyo bedel khayr qaba oo qofkaas uu ku qancana in allah subxaanahu wa tacaala uu siiyo اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتمله بها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا عزيز ويا خلاق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتمله بها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا عزيز ويا خلاق ولا waxaan kaloo aan ku daba daraynaa dhikri aad insha allahu tacaala qawi u ah oo aad u muhiim ah dhammaan dikriyada iyo adkaarta aan akhrino dhammaantood aad bay muhiim u wada yihiin qof kasta oo dikri ka mida dikriyadaas laasimana allah subxaanahu wa tacaala waxa uu tusi doonaa cajaa'ib waxa uu siin doonaa gargaar iyo nasri dadka daakiriinta ah quluubtoodu waxa weeyaan waa dad quluub barwaaqaysan leh oo nolol barwaaqo oo waasica ku nool laga yaabaa inaysan hanti badan haysan laakiin quluubtoodu waa dad ay nooshahay oo xayi ah barnaamijyada aan soo gelino kanaalkan waxaan ugu talagalnaa inaanu ku dhiirigelino dhammaan dhegeystayaasha iyo ummadda muslimiinta ah waxaanu u niyeysanaa sadaqatu jaariya cilmi ma lihin sheekh ma yihi laakiin waxaan u niyeystaa sadaqatu jaariya ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu inugu daro qof kasta oo ka faa'iideysta qof kasta oo dhegeysta qof kasta qof sii gaadhsiiyo afkooga sheega waana sababta aanan mar kasta u dhihin like gareeya share gareeya waxaasoo dhan subscribe gareeya waxaasoo dhan aanan u dhihin dar ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii loo wado ilaahay subxaanahu wa tacaala baa faafinaya walaalayaal digrigan aan soo wado waxa ay aad u anfacaysaa qof kasta oo aragga daciifka ah oo indhaha araggu ay daciifeen
aad buu u anfacayaa dikrigani sidoo kale wuxuu anfacayaa dadka ay timuhu daataan ee dhibaatadaas mushkiladaas ay haysato. wuxuu anfacayaa sidoo kale jamaal fil wajh, dadka quruxda wejiga ah raba haddii ay joogtayaan Allah subxaanahu wa tacaala waa siinayaa. dikrigani waxaa sidoo kale u anfacayaa soo celinta xusuusta. dikrigani waxaa sidoo kale u anfacayaa qofka ducful jinsiga uu haysto oo xaaska leh laakiin yacni la macaamilkii xaaskiisa daciif uu ka haysto. waxaanu kaga kaaftoomi doonaa waxyaabaha yacni dhibta badan ee daawooyinka ah ama kiniiniyada ah dadka qaarkood ay ku ibtilaysan yihiin. waxaasoo dhan uma baahan doono biidni illaahi tacaala. dikrigan dadka xubnaha qaarkood ay qalaleen haddii ay joogteeyaan xubnahaas waa noolaanayaan biidni illaahi tacaala. tirada ugu badan ee dikrigan aan soo wada laga akrinaya waa 700. tirada yacni yar ood ka akrin kartaana waxa weeyaan 70. laakiin dikrigan qofka aan xaaslaha ahayn waxa weeyaan waa inuu yareeyo oo uusan badsanin, laannahu yacni markiiba xaaladihiisa ayay saameynaysaa oo jidhkiisa ayaa hormoonada jidhka ayaa quwad iyo awood yeelanaya. dikrigan qofku wuxuu leeyahay bilaa ilaaha ila allah yuxyaa jasadii, bilaa ilaaha ila allah yuxyaa jasadii, bilaa ilaaha ila allah yuxyaa jasadii. wardigaas qofku dhahi doona biidni illaahi tacaala. qofka xaaslaha ah waa akhrisan karaa 700 waa gaadhsiin karaa. qofka xanuunada kale qabana waa gaadhsiin karaa. laakiin dhalinyarada yacni allahuma salli calaa maxamed haddii xusuusta oo kale aad rabto inay kuu xoogaysto 70 ka akhri, biyaad ku akhrisanaysaa waad cabbaysaa. allahuma salli calaa maxamed timaha daata sidoo kale waad kaga caafimaadaysaa. aragga daciifka waad kaga caafimaadaysaa. hormoonada meeshaas aad ka dhibaataysan tahay baa ilaahay subxaana wa tacaala aad u niyeysanaysaa inuu kugu caafimaadiyo. sidaasaana ilaahay subxaana wa tacaala biidni illah aad kaga heli doontaa hormoonada. ayuu aad u caawiyaa dikrigani. bilaa ilaaha ila allah yuxyaa jasadii. marka laa ilaaha ila allah oo ah yacni towxiidkaas baa allah subxaana wa tacaala jirkaaga uu ku nooleynaya. macnuhu waa saas. walaalayaal mar walba aan isku ducayno. wixii shar ku ah naftaada, ehelkaaga, ummadda aad la nooshahay ka dheerow. ilaahay subxaana wa tacaala ha ina ururiyo. qof urursan noqo oo macaasida iyo ka urursan, khayrkana u degdega biidni illaahi tacaala. khayrka allah hayna waafajiyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. qof kasta oo dhibaato un meel ka haysato waxaan ilaahay uga baryanaa meeshaas inuu yacni ka xalliyo. qofkii xanuun qaba oo caafimaad raba ilaahay caafimaad inuu siiyo. qofkii guur la-aan ay hayso oo dhowrsanaan raba ilaahay guur degdega iyo lamaano u qalma inuu siiyo. qofkii arsaaqdu ay ku yar tahay arsaaqda ilaahay inuu waasiciyo. qofkii shaqo raadisa shaqo inuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyo. kii maxbuus ah ama cid ka xidhan tahay ciddaa maxbuuska ka ilaahay subxaana wa tacaala inuu furdaamiyo. qofkii dana ganacsile iyo arrimo kale leh oo allah subxaana wa tacaala inuu muraadkiisa uu siiyo oo aan macsi lahayn. wax kasta oo khayr leba allah subxaana wa tacaala dhammaanteen hayna siiyo. wax kasta oo sharahna allah subxaana wa tacaala haynaga xijaabo. wax khayr lana allah haynagu bedelo. tan iyo inta barnaamijka kale ee soo socda aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah alladii laa tudiicu wadaa'icahu في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا عسيس ويا خلاق.